sidee geeridu u imanaysaa marka waa garanay qof kasta inuu dhimanayo sidee geeridu u imanaysaa malaa'igta ilaahay shaqooyin bay qabtaan kuwa ilaahay si gaar ah inoogu sheegay magacyadooda ama shaqooyinka ay qabtaan waxaa ka mid ah malag nafta qaada qul yatawafaakum malaku lmawt alladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun waxaa nafta idinka qaadaya malaku mawt ilaahay idin wakiishay inuu idin dilo oo nafta idinka qaado qofku sidee buu ku geeriyoonayaa si lama filaanay geeridu kugu imanaysaa ma ogid goortay kugu imanayso xaggee kugu imanaysaa xaggee warkaagu ku dambayn doona fi suurati luqmaan wamaa tadrii nafsun maadaa taksibu ghadaa wamaa tadrii nafsun biayi ardin tamuut nafina ma oga berrito waxa ay mudan doonto oo kasban doonto nafinana ma oga meesha ay iyo arlada ay ku geeriyoon doonto rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii ilaahay uu doono arlada adigu aad joogtid arla aan ahayn ama magaalada ama beledka beled aan ahayn ama waddanka waddan aan ahayn in aad ku geeriyootid oo qabrigaagu ka qodan yahay oo lagugu aaso dan iyo muraad baa laguu gelinayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa xabaashu ma socoto ee ninkeedaa socdaa oo meeshii xabaashaadu ka qodantayd kii taga unbaata rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah idaa araada allaahu qabda cabdin ilaahay hadduu doono addoon inuu oofsado arladiisa meel ka mida jacala lahu biha xaaja dan buu ilaahay meeshaa u geliyaa subxaanahu wa tacaala mawdku iyo dhimashadu iyo geeridu ajal xadidan baa ilaahay u sameeyey subxaanahu wa tacaala dhacna ma leh kasoo hormaridna ma leh fi suurati aracd fi suurati alacraaf likulli ajalin kitaab faida jaa ajaluhum fi suurati alacraaf laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun hadday geeridu timaado dibadhac iyo horudhig midna ma jiro alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay malaa'igta sida malaku jibriil sida malagii mawdka baan u jeedaa waa inuu aayadda hore ku soo aragnay fi suurati naxli aladiina tatawaffaahum almalaa'ika ظaalimii anfusihim marka le ilaahay wuxuu leeyahay tawafathu rusulunaa rusushayadaa oofsanaysa nebiga waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in midta fahum alkhaaliduun bashar adduunka bani aadamka jooga ka mid ah adiga hortaa ma aanan ka yeelin adduunkan inuu ku waaro oo iska noolaadoo joogo haddii adigu nebi maxamedow aad dhimatid iyagu adduunka miyay ku waarayaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala taasina waa warcad qur-aanka kariimka ah waxaa ilaahay sheegay geerida iyo sakaraadku 4 meelood baa ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulkuna sheegay calayhi salaatu wasalaam in wax kasta oo kugu yimaada geeridu ka culusta waxa macaani aad haysato caafimaadka nolosha adduunka waxaad haysatee kala duwan hadday geeri kuu timaado khalaas ka kuu dhammaata akiruu dikra haadihi ladaat badiya buu nebigu yiri sal alla alay wasalam xusuusashada had iyo gooraale aad xusuusantaan midka gooya waxa naftu ay jeceshahay ee macaanada ah waa waalidkii walaalkii awlaaddii aqalkii adduunkii arrinkii awooddii ool waxaad haysatay oo dhan waa lagaa dhex saaray marka naftu kaa baxdo ayaa 2 shay markiiba waa la waayayaa magacaagii iyo qabiilkaagii waa la waayayaa markiiba waxaa la odhanayaa markiiba maydka ma dhaqdeen maydkii ma la kafnay maydka xabaashii ma loo qoday maydka goormaa la aasaya maydka ma lagu tukaday xaggee maydka lagaga tukanaya weli ma aragtay qof intuu dhintay la leeyahay cali goormaa lagu tukanayaa maxamuud goormaa lagu tukanayaa faaduma jaamac yuusuf ma jira waxaas magacii waa dhammaaday hadduu mansab kasta haysto waa dhammaaday weli ma aragteen qof dhintay oo mayd ah oo la leeyahay
qofkan reer hebel ee meesha kafanta ku jira gorma la maydhaya ma jirto waxaasoo dhan waa ka tegaysaa adduunyada magacaasi waxaas waa ururaya sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka kariimka ah subxaanahu wa tacaala dhowr meelood buu ku tilmaamay mawdka iyo geerida qofku sida geerida ugu imanayso